kulan ay soo agaasibeen ururka Bahar ay ku mideysan yihiin dhalinyarada labada beelood ee Bahar Samiye Khayl Cabdi ayaa lagu qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ka soo qayb galay odayaasha culimada iyo haldoorka labada beelood kaas oo looga dalaa sidii loo xoojin lahaa labada iyo xasiloonida labada beelood ay uga qayb qaadan lahaayeen dhalinyarada labada beelood kuwaas waxaana ka mid ah hadalladooda dadkuna waxa fiican horta in la fahmo waaqaca iyo waxyaabaha laga hadlayo iyo macnaha ujeedadu waxay tahay aynu horta baan yar aynu isfahansiinayna horta anagu halkan ayaa jimcihii hore wax ka dhacay shir waxa ku galay anaga iyo culimada gobolka Bahar Khayr loo bixiyay Khayl Cabdi iyo Bahar Samiye waxaan isla qaadanay inaan ka shaqeyno nabadaas waxay culimadu yiraahdeen weena soo sameystaan guddi wixii hogaamisa guddidii waa sameynay labada beeloodba haddii aanu guddi sameynay waxaan isku daynay in maadaayo waxa la yoodo dhacmaysay oo kala sareeyay bal loo kala guraay in aanu isku dayno in baan horta dadkii dhalinyarada ahaayeen magaalada inaan helo Laascaanood helo oo bal iswareysano oo bal wax isla faahfaahino maaha waxaan anagu gaar u wadano oo wax umada ka dhaxeeya oo waxaan u aragno xal maanta waan ognahay dhibaatooyinka deegaamadeenna iyo dhulkeena quruxda ka jira waxay ku dhacayna garanan waxaan ku dhibtoonayna garanan badan oo dhalinyaro ana way sabaabuleen waxaanu sameynay guddi ka kooban labada dhalinyaro ee labada reera sida awgeed oo 10 xubnooda waxaanu sameynay kulamo badan oo waqtiyo badan qaatay in la isugu yimid kulankii u dambeeyay odayaashu ay isugu yimaadeen lagu kala qaadanayay duugti lagu kala qaadanayay dhalinyaradii qaybo kamid ah ka qayb galay ilaahay khayr ka siiyo gudoomiyuhu kamid yahay oo runtii halka ay kelmada ka soo jeediyeen inta ka bacdi waxa dhacay in balaanu damacno inaanu la kulanno madaxda gobolka oo barasaabku ugu horeeyo iyo barasaabku xigeenku iyaga qudhoodana aanu shir la qaadanay ay runtii ku taageerayaan hawsha aan wadno iyo arinta aan ka shaqeynayno noona sheegay inayna garab taagan yihiin oo ay wax walba ay diyaar leeyihiin ay ku bixinayaan sida awgeed waxa loo baahan yahay marka in kulankan aan maanta ugu talagalnay dad inta ka badan oo lagaga warbixinayo bal in arinta sidii waa fikirka dadka aqliga saliimka leh ay arintaas kula qaadan lahaayeen loo xoojin lahaa loo shaqeyn lahaa waayo waxaan ognahay inaynu hal qoys nahay oo ayna laba kala ahayn inaynu nabadgelyada iyo khayrka ka shaqeyno inuu fududeeyay alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan wixii ka shaqeeyay nabadda labada beelood ay ugu horeyso odayaashii iyo madaxweynihii kiilarka Soomaalida ee hogaaminayay garaad kulmiye khayr Allah siiyo waxay ka danqadeen dhibaatadeenii iyo hadii la ku rumeeyay wixii la xiyaalay tuliimo iyo hadii la ku rumeeyay islaamnimada way muujiyeen nimanka aad baan u soo dhaweynayaa innaguna waxaanu ka ballan qaadnay inaynu barti ka sii wadno khayrkii inta waynu ku jirnay maantana insha Allah waxaanu ka shaqeynaynaa sida aynu nabadda labadeena beelood ee waliba isku beesha isku midka aynu uga saari lahayn dhibaatada cidna aynoo dhaxayseen waayo iyo dhalinyaradu maxay ka waajihi kartaa arintan maxay ka qaabili kartaa waxaanu oran karnaa dowrka dhalinyaradu waa ka kaliya colaadna ku sii socon karto nabad iyo wanaagna lagu islaaxin karo sababtoo ah sidii Sheekh Muxtaar noo tilmaamay cidda kaliya dagaalantaay waa dhalinyaro cidda kaliya waxa weeyaan shaqaaqadan ay dhex taalaay waa dhalinyaro oday intuu qori qaato ma dagaalamo haddii nabad iyo islaax iyo wanaag iyo wax fiican lagu ballamo lagu tashadana hal qof kaliyaaba waxa weeyaan hawshaas ay u suuragali kartaa waxaynu ognahay oo aynaan isu tilmaamayn hadba qofku inta uu iska dhigo iyo sida uu hawshan mas'uuliyadeeda u qaado inay ku xidhan tahay haddaynu dib u daalacanno dadkii naga horeeyay mas'uuliyadooda aad bad ula cajabaysaa haddii aad xagga saxaabada radwaanullaahi calayhim u iilato
waxaynu arkaynaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam hal qof hal wiiloo yar oo 18 jira ama 17 jira magaalo dhan intuu u diray inuu leeyahay oo wada gaalo ah wax ka bedel haddaynu u iilanno xagga wax qabadka bulshada markaad sii eegto SYL dhowr iyo 10 wiil oo ku tashaday sidii ay wadankooda gumaysiga iyo dhibaatada uga saaraan bay ahayd dhowr iyo 10 wiil inagu maanta inagoo 30 qof iyo 40 qof iyo 50 qof ku fadhina ayaa laga yaabaa inaynu leenahay wali waynu yarnahay horumar in la gaadho iyo wax qabad in la qabtay kuma xidhna tirada aynu nahay ee waxay ku xidhan tahay hadba sida aynu wax qabad ula nimaadno waxay ku xidhan tahay hadba sida aynu qofnimo iyo dadnimo aynu ula nimaadno wacan baad meesha ku haysaan oo aad iyo aad u wacan haddaan anagu dhalinyarada nahay ama afka dhalinyarada ku hadlayna aad iyo aad baanu taageeraynaa waayo nabadu waa wax qaaliya waa shay qaaliya intii naas maanta u fadhida alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa maanta iskale intii naas oo dhalinyarada maanta u fadhida hawsha horana dee hawsha weynu ogeyn fadhiyo badan bay yeelatay إذا حما قبان كرتو إنه هذين إنه حق بسنين إذا حنا قبان كرتو ما جرت وحنا بالعادة كان أنتنا هذا ماشي تشوكته كبدن بعد ما بحنا وإنك وير حلاقة يا بقول جسنا كله اللي هاي توقف أنا كبدن كاد بدو كل نشاط وشكتو وحايد ربطو أما نبض وحايد تاني وكذا لأنه جدي مشهور من وذا جالسين كلام